Miyaan la sii joogayaa lamaanahayga inkastoo aan caajis ahay, galmo aan jeclayn? Uma baahni in aan ka lulobo raafka, laakiin waxaan u baahanahay wax ka badan galmo dhexdhexaad ah oo ku jira booska adeegayaasha. Waxaan ahay nin 30 jir ah oo la kulmay lamaanahayga hadda 8 bilood ka hor. Markii hore aad baa la ii kaxaystay, laakiin wakhtigu wuu socday, dhowr waxyaalood ayaa iga cunay. Galmadayadu waa caajisnimo, niyad jab iyo nasiib darro, inta badan adeegayaasha dhexdhexaadka ah. Waxay ii sheegtaa inay tahay waxa ugu wanaagsan ee ay weligeed haysato, taas oo iga tagtay murugo. 2 jeer oo bulsheed saaxiibadeed, intay xanaaqsan, waxay xaqiijiyeen dareenkeeda ku saabsan jacaylkeena. Waxaan isku dayay inaan kala hadlo wax ku saabsan xaaladda, laakiin inkasta oo aanan si sax ah u rabin in aan ka lulo saqafka, waxay ii sheegtaa inay jeceshay habka aan u samayno iyo in aysan xiisaynaynin jagooyin kale oo qalaad. Waxaa intaa dheer, waxaan bilaabay in aan helo dhinacyo kale oo xiriirkeena ah sida xanaaq. Marka aan soo jeediyo fikradaha taariikhda ama waxqabadyada aan wada samayn karno, waxay ii sheegi doontaa inay rabto inay wakhti ila qaadato, taas oo u tarjumaysa habeenkii guriga oo daawashada TV-ga. Markii ugu horeysay ee aan bilownay shukaansi, waxaan u bixi jirnay si aan wax u cunno, u qabano filim, waxaan booqan jirnay jardiinooyinka maxalliga ah ee sorodka, iyo wixii la mid ah. Waxaan ahay qof firfircoon oo jecel inuu jimicsi sameeyo, u baxo tacaburada baadiyaha, tijaabi fasalada cunto karinta, oo la sameeyo hawlo lamaane, laakiin ma xiisaynayso. Iyadu waa qof aad loo jecel yahay, laakiin waxaan bilaabayaa inaan ka fikiro in laga yaabo in aanaan isqaadan karin. Dadka qaarkiis si dabiici ah ayay ula kulmaan qeexida jirka guriga, waxaana laga yaabaa in lamaanahaagu uu midkood yahay. Laakiin waxaa jirta sabab kale oo ay dadka qaarkiis u xiiseeyeen dhaqdhaqaaqyada. Dadka la nool niyad jabka waxay u muuqdaan inay leeyihiin dib u dhac maskaxeed, ma dareemaan inay jidhkooda dhaqaaqaan. Waxaan la yaabanahay haddii lamaanahaagu uu u baahan karo taageero raadinta daaweynta cilladda niyadda, ama laga yaabo inay daalan tahay ama ay ka welwelsan tahay nolol shaqo oo daal badan, ama ay jirto dhibaato kale oo halkaas ka jirta. Ka fiirso waxyaalahan markaad qiimaynayso inaad baxayso iyo in kale. Iyo oo ku saabsan waxa aad u aragto dhadhanka dabacsanaanta ee samaynta jacaylka, laga yaabee inay tahay mid aan khibrad lahayn oo si fudud looguma raaxaysan qaababka kala duwan ee kacsiga. Xaaladdaas waxay noqon lahayd caqligal in lagu soo bandhigo kala duwanaansho tillaabooyinka yaryar ee kordhinta marka ay si buuxda u kacdo, had iyo jeer hubinta heerka raaxada. Waxaa laga yaabaa inaad filaysay ama aad codsatay wax badan oo degdeg ah, taasoo khatar badan ku ahaan lahayd iyada. Samir.